shaqaqadii ay shalay ka sameeyeen qowlaysato yar oo ka tirsan maamulka Puntland deegaamada Somaliland gaar ahaan gobolka Badhan sida la socotaan gudoomiyaha gobolka Badhan oo dhawaan la magacaabay ayaa wuxuu ka tagay safar halka ka tagay soo socdo gobolkii marka wuxuu maray Argabo wuxuu sii maray Yube wuxuu sii maray Ceelcad wuxuu galay magaalada Hadaftimo si fiican baa loogu soo dhaweeyay meel kasta uu marayay marka kadib baa qola qowlaysata oo ka tirsan maamulka Puntland ayaa si dhuumasho ah waxay u soo dhaafeen ciidamada qaranka Somaliland jooga gobolka Badhan magaalada Badhan iyo hareeraheeda iyagoo ka soo dusay meel dhulka waa buuraley waa dhul luqluqyo badan leh meelo badan oo laga dustuso iska leh si dhuumasho markay ka warheleen in gudoomiye si fiican loo soo dhaweeyay ayay dhabarka ka soo dhaafeen deegaamadaas waxayna gudoomiyaha u galeen meel la karin tuushay oo Hadaftimo iyo u dhaxaysa Badhan kadib markii uu ka tagay magaalada Hadaftimo ka boqolay waxba kama faa'iidin khasaaro weyn baa ka soo gaaray jab baa ka soo gaaray dhibaato weyn bay kala kulmeen waa ka shalaadeen kuma farxin halka waxa ku dhintay taliyihii ciidanka watay ee Puntland waxa ku dhaawacmay ku xigeenkiisii waxay qaateen dhaawac fara badan oo kale waa carareen ciidankii la socday dhalinyaro fiican oo la socotay si fiican bay isu difaaceen gudoomiyaha deni wuxuu lahaa wada hadal baan la fureynaa Somaliland taasi waxay ahayd dagar qarsoon oo ku gabanayay oo rabay inuu ku dago maamulka dowladda Somaliland iyo gudoomiyaha gobolka maamulka ka jira gobolka Badhan ee Somaliland dagartiina waa muuqatay wax la aamini karo heshiiska uu sheegayo iyo wuxuu sheeganaya ma jiro waxaan ka heshiinayna ma jiro oo inaga dhaxaya waxa weeye muxuu nagu la heshiinaya dalkeenu nagu la heshiinaya xageenu nagu la heshiinaya muxuu inala sheer galaynaya muxuu inala wadaagaa talna inaga lama wadaago waxaynu kala heshiinayna ma jiro waxaynu kala sheekaysanayna ma jirto dalkaasi gobolka Badhan sidoo u dhan yahay wuxuu ku jira gacanta Somaliland shacabku waa Somaliland taageero fiican bay u hayaan Somaliland caalamkii ayaa wuxuu ku teedsan yahay oo ka taagan yahay magaalooyinka xadka ku teedsan Badhan waa bartamaha sidaad arkayseen waftigii dhawaan tagay koonaha ugu shisheeya ee gobolka Badhan ee degmada Dhahar si shacabku soo dhaweeyeen wada arkayseen si boqoshada u sameeyeen wada arkayseen tuulooyinkii mareen wada arkayseen mashaariicdii xariga ka goynayeen iyo kuwii dhagax dhigayeen wada arkayseen taas markaanti u ah meel joogaba shacabka gobolka Badhan inuu taageero fiican u hayo dowladda Somaliland aqoonsan yahay inuu dowladdiisii tahay markay ogaadeen inaan jirin haba yaraatee dad shacabka gobolka Badhan ama deegaanada ka tirsan oo taageero u haya waxay keeneen ciidamo iyo ka keeneen gobolka Mudug kuwa ay ka keeneen Garow kuwa ay ka keeneen dhul aad u fog oo magacaantooda kala garanayn oo isku soo dareen oo halka ka socda hadii ay taageero ka haystaan ciidamada deegaanka ay adeegsan lahayn laakiin waa waayeen ciidamada deegaanka haba yaraatee deegaanka ka tirsan oo taageerta waa waayeen taas ku kaleftay si dhuumasho ah in iyagu halka intay ka yimaadaan meel fog ka yimaadaan ee si dhuumasho halka rabshad uga sameeyaan ujeedada ka dambaysa waxa weeye inay u ekeysiyaan hadii jaraal ka dhigan gobolka Badhan meel aanay nabadgelyo ka jirin meel caalamka iyo hay'adaha caalamka ay u tusaan meel ay hadii jaraal nabadgelyo ka jirto meel aan haba yaraatee horumar laga sameeyn meel ay dadka u ka dhigaan kuwa aanay gaarin macaawinooyinka iyo waxtarka ay dowladda Somaliland hadii jaraal wado iyo mashaariicda ka fulinayso ee caalamku ku khasbaan u ekeysiyaan halkaas oo meel la isku haysto wax la isku haystaa ma jirto gobolka Badhan waa israacsan yahay ilaa xeeb ilaa bari ilaa gebi ilaa oogo sidoo u dhan yahay waxa weeye shacabku maanta gacmo yeesaysta waxay soo dhaweeyeen dowladda Somaliland waa taageersan yihiin waxana marqaanti u ah mar labada dan ku cisho ma soo direen ciidamo ka yimid deegaamada Mudug iyo Garow iyo meel aad u fog kuma dhinteen Hadaftimo kuma dhinteen waa dad aad uga fog hadii helayaan taageero ay ka helayaan cid gobolka ka tirsan marka ninka dini leeyahay
lama aamini karo heshiiska uu sheegayo aan isnabadgelino aan dad walaala noqono somaliland taasay ku fikiraysay mar kasta laakiin mar kasta waxaa muuganaysa oo caalamka u cad oo adduunka u cad oo cid kasta u cad inuu ku gardaroonayo oo ku xadgudbayo qarannimada somaliland